ina aniga hal habeen ba Allah ka dhigay sariir la soo jiiftay horta meeshan waxa ka dhacay wax aan la filanaynin adduunkan dhif iyo naadirka ah nin camera ka duubay gabar uusan qabin way dhacday laakiin lama arag ama nin gogoshi uu ku jiifanayay ka sheekeenayo lama arag nin gurigu ku jiifanay marka wali may dhicin gabar nin naag uu qabo gogoshi ka hadlaayo wixii uu sameeyay sax iyo qalad ka hadlaayo maxaa la yiraahdaa waxyaabo nolosha guriga iyo ilmihi ka hadlaayo been iyo run isku soo darsanayo meel la soo kontonjir meel la soo istaagayo naagtiisi uu qabi jiray xaaskiisa cunugiisa caloosh ku soo qaaday uurka u yeelatay 9 bil soo good soo siday 9 bil walaceysay sariirta saarneeday isbitaal gashay lagu qalay ku jiratay ilaahay caafimaad siiyay cunug yar oo qurux badan inkastoo ay iskala jirin yahay ninkaas haddana maanta jirkiisa aniga korkeyga saaran cad aniga korkeyga kamida korkiisa kamida ayaa korkeyga saaran soo marka wali ma dhicin konton jir waxa sameeynayo 20 jirna ma dhicin sameeynayo 15 jirna muu sameynin 30 jirna muu sameynin laakiin but today waxaan aragnaa konton jir meel la soo istaagay naagtayda ay wastay waaba ay wastay horta haddaan ku wasiyo hadaa ay wasto waa isla meeshi waxa la yiri oo qaadid iyo jiidis waa isla meeshi balse anigu hadda waxaas dib ina ugu noqdo ma rabi anigana waan ku ogahay waxa tahay adigana waad is ogtahay waxa tahay ma qurux badnayn inaad ka hadashid waxa tahay because of marka waxa soo kala ka hadasho waxaan ku qasbanahay inaan wixii jiro sheego inaan wixii markaas jiro sheego xaqiiqda aan taabto waan ku qasbanahay hal la aamino ama yaan la aaminin waan ku qasbanahay maanta hadii wasbadaad sheegaysa aan ku wasla cilmi qabilahayn haddaan kugu raaxaysana anoo ku rabo oo kugu raaxaysana adiga saa sheegtay sameyn lahay cilmi qabilahayn laakiin I'm sorry ina igu nabtid waxaan sameyn I'm sorry ina caadi u sheegtay wixii baaba sheegtay si u yihiin ma u sheegays nin ina guri markay galaan isma deynayaan waa la ogyahay ama ninka eber ahaada ama uu kacsanin ama ha kacsada ama dhificil hal hada ama naagta ha noqoto ama ila lisdeyn waa la ogyahay meher maalintu ninka naagta iskugu dhaco weeyaan awlaad inta ka keen cunugan inta ka keenani haddaadan adiga ila raaxaysan cunugan xooya caloosheedu ku jiro oo banaanka imaado ruuxda badan loo bartaas joogo intuu ka imaado Soomaha adiga wax ka yimid waxa taba ahaato yaana anigu ku raaxaysan yaana ku rabin anoo ku rabin aan kula noolaado you know aniga inaan ku rabin muqtaar runta markii laga hadlo kun mar ay weydiisaan inaan ku rabin kale milyan ima jeclid fiidiyoyaashay soo ma gashatid wax badan ay tiri waa ku sheeg wiligeey ma ku qiyaan waa dhimanay muqtaar 2 mitir baad leedahay god aniga wili ma ku dhaw ku jecela wiligey kuma dhihin marka ay tiri milyan ima jeclid yes qasab ma jecelkan qori jir waana sax 2 sano ku dhawaad qaba jecelka kansada cunugiisa ugu horeey marka aniga u dhalo asaga u dhalay kii labaad ku jeclaada ninkay markaas waa iga kansan kartay jecelka kansasho waa tan kale jecelka ma ahan istutus iyo lacag naag la siiyo iyo dadka la istutus iyo koob biyo la isku keenayo caana la isku keenayo no ma jecelka muqtaar aniga wax igu ka daray baacayo xoolaha waxa tahay wax iigu ka daray aad baan uga xumahay ina aad iigu daro Soomaaliya kama xumi aydas u yaay waxba uma arki because aniga waa ogahay waxaan ahay baan ahaanaya waan ogahay waxaan ahay maanta waxa aniga kama xumi ninkaas afkiisa waxa ka soo baxay waxaan ka xumahay ninka noocaas waxa aragteen ku hadlaayo noocaasa kontonjir aqligiisa celi karin ina aniga hal saac Allah ka dhigay aan intaan kursi la fadhiistay saas uga soo horjeestay oo ishu kaansaday oo ugu dhahay milyan aad ba qurux badan tahay milyan adigoo kale wiliga ma arkin milyan noloshayda tahay anigoo u sheegay wiliba inaan jeclay waxaan aad marka ugu gubanay uga xumaa ayaa waxay tahay dhalanimada ugu tilmaamay kama xumin because I'm not dillo he know me haddaan dillaha aniga 3 week asagoo yaqaan meerkayga xamar kama dhaceen waa iskala tuman lahaa 3 week oo yaqaanay 3 week kadibna meerkayga dadka dhigaya joogo dadkan kala tashtana way joogaan kama xumi because ma ihi aniga dillo okay wuxuu yiri naagta wuxuu yiri wasaqley waa 6 bilaan nadiifinaa gurigeeda kama xumi u yaqaanay dadka Afrika ugu yaqaan dadka intii ugu yaqaan intaba way nool yihiin
wixii meeshan ku jirna way soo qabsan karaan oo yaqaan gurigeyga qofkan gurigeyga aqoonin kama hadli kara dambiyo ku tahay laakiin qof aniga ii imaan jira ama gurigeyga yaqaan ama ilo noo wuxuu yiri xeeheeda Ugandays wuxuu yiri Ethiopian kama xumi because wiligeenin ajnabi gabar Soomaaliya markay guursatay xataa waan kama seeraa ajnabiga markaan arkay gabar Soomaaliya oo nin ajnabi ah wallahi oo bilaa oo talaahi qabo ama guursanaysa ama shaqaalsanaysa just jealous aan noqdaa waa shayga kaliya aan kama seero waan ma seeraa ayadoo nin Soomaaliga markaan arkay ajnabiga noo wato anigoo og in ka helitaan oo adduunkan jiro in adduunkan dimuqraadi uu yahay in adduunkan uu yahay haddana waxaan ka fikiraa awlaad ka imaan karto awlaad meeshas ka imaanayso sida ay micnaha hadhowta ajnabiga markuu nin ajnabiga ku guursado ilmaha u dhashid ilmahaas inta badan ninkaas hada isku dhacdiin ma arkaysid never ever wadankaas ina ku noolaato waa ku qasban tahay hadii kala soo maaha wadanka kama bixi kartid carabta ugu daran marka wiilasha ajnabiga guursadana dhibaatadaas way ku dhacdaa gabdhaha ajnabiga guursadana way ku dhacdaa sidaas daraadeeda aniga waan ka naxaa markaan arko ajnabi oo wiilal guursana ama gabdho sidaas daraadeeda aniga ajnabi lama soo tuman imana soo guursan Ethiopia wax badan aan ku noolahay qofkii yaqaan dad badan ay yaqaan oo meeshan ku jiro aniga naa ganacsato dukaaman haysato shaqaale u joogan nolol haysato Soomaali soo xareyso gurigeeda hadda mareexanka waa necbantaa milyuuno Ethiopia nin mareexan ay ma qabin ma shukaansanaynin ilmo uma haynin maanta cad mareexan kamid ah gurigeyga yaalo anoo intaas buu hayna gurigeyga gabar mareexan ku nooleeday aan soo xareey Soomaalinimo waliba anoo guri cariiri degan laba qol ee fadhi bisaan degan gabdhahan oo wanaagsan oo sharaf badan ay soo fureen waxay biila karaan ay biishtaan shaqaysatana la maal geliyaan ayaan ahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala heybad u dhiibay wuxuu yiri gabadheeda waa wacel waxa ka dhalo wirnin Ethiopiana xanaaqas wallahi waxaas xanaaq inuu heerkaas ku gaarsiimahay muqtaaro aniga I know ina ay jecesha I know you ina ay jecesha dariskana way ogyihiin ina ay jecesha dadkana daawadana way ogyihiin ina ay jecesha laakiin maadaama aad jecelkaaga weysay wixii ay socon waayeen calafkina meesha ku ekaaday milyuun aysan dul qaadan karin xaraaq iyo maseer iyo waxaan ku iraahdaa iyo inuu ku gaarsiiyo heerkaas ma ahayn cunug yar oo saqiira war fiiri oo cunugaaga la dhalatay oo aabeed 20 jir yahay uu ka qurux badan yahay uu ka akhlaaq badan yahay uu san waligiis dhil ay dhihin uu san waligiis milyuun nin baa wasay uu san waligiis milyuun baan ka kor maray ama ka hoos maray ayaad waxaa tiri waxaa dhalay Ethiopian وناك علي جافة عد كعلي جافة ناكتاس في اللذا أذير كانك كسارة أذير كانك في اللذا كسارة أيا أذيروه جواد داس ماشى كلا جلسنتها مركا وأوقتها جواد إني علي جافة أوقتها سيدا دراد هذا ومثير سنتها وحتى العنق إثيوبيان بادله والإثيوبيان هدول عنق جاجة هدول شين دلنا هرت عادي قادله عنق جاجة هدول مصي هي واحد علاش هذا كسبح مصي يرد وضوما ده هدول هي عنق جاس عادي قادله وعنق جاجة تنكل عنق جاجة أبيسه بس عنق جاجة كمان عنق جاجة عادي مرة البوع عنق جاجة وانقرت تقولوا كلنا نولد أذر maxaan kaarkaaga aad u dhiibaysay adeer gudahayeen adeer adheysay ayaad waxaa tiri labana waa jiranta labana waa jinni wiilka yaraaya adiga aad taqaan kaarkaaga u dhiibi jirtane waxaad u saaraysaa daadi hooyadiisaasiis hadaad qof caqli la tahay way aad 5 cunug 5 naag uga kala dhashay the reason kan ku sheega marka naag baad guursanaysaa saa aniga isma dhehnin baa ku qiyaan karo waxaan isku haystaa naagta naagaha u aqliga badan fakta haduu qof barfaktiya inaan ahaa ayaan aaminsanay haddana adiga iga guuleystay because of waa qiyaanta waa iga aqli badisay I don't know why sixirta amaleena ma garanaa waxaad iga keentay 3 wiil gudooda anoo 2 nin oo habar giri abgaal la sheekaysanay sanado inaa adiga ku guursado basta waa haya igu dhufaneys afkaad igu amaantood igu tiri ceeb male milyuuno aniga cadeeyo waa curad ninkii dhalay looga yeelaa adheysay afkaad social media inta ku soo istaagtay public aniga intii amaanta ayagu caysay aniga kuma dhihi gabdhaha daarood cay mid kalena maanta Soomaali u cadeena aniga mukhtaar wiligay ma dhihin kaala mukhtaar oo live kan gale daarood iiga jawaab ama mareexan iiga jawaab ama nin baaicay iiga jawaab wiligay ma dhihin haduu ma dhihin wiligay aniga qabiilkaaga icay dadka hadda waxaan saas u leeyahay
waxaad aaminsantihiin inaa aniga mareexaan caydiisa ka dambeeyay maanta waxaan rabaa inaa idii caddeeyo inaana mareexaan caydiisa aniga ka dambeeynin oo asaga caynay aniga waa caay danahayga oo caay aniga weligeen cayn jiray ilaa haddana waan cayn doona hadday dulmiyaan cid aniga dulmis abgaalo waxay isla cadoon ka dhashtay British oo dhiigayga jirkayga ayaan iska celiyay inta waxyaabaha facshir kale ee fadeexada ee qurunka ee qasiisnimada ee meeshaas ka dhacday diin la'aanta dadka ka gubtay inta badan ee ka falceliyay iyo kuwa quluubiyan u nacaladay iyo kuwa afka ka nacaladay iyo kuwa waxaan ku iraahdaa gacanta ka nacaladay intaba waxaan leeyahay horta wad mahadsantiin Soomaali gabi ahaantiinbo reerkayga kaliya aniga oon beesha wiil ka soo jeedo ma ahan dadka aad uga caroodo waxaan inkastoo reerkayga ay u badan yihiin dad badan oo Soomaaliyeed oo Soomaali nooc walba halahaatana aad uga xumaaday waxyaabaha meesha ka socdo wax qurux badan ma ahayn wax fiican ma ahayn wax laga rajeeyay raga ama ka soo yeera ma ahayn ama qof diin leh intaba soo marka aad baan idinku mahad celinaya dadka intiina wanaagsan ee sharafta badan Soomaali waxaan ogaaday inaa wada wanaagsan tihiin hal iyo laba qof aan arkay hal qof mesela laba qof aan arkay wax oo wali quluubiyan u xun Soomaali si kasta isku caayaano qabiil kasta isku ridaano hal la isbursado laakiin inta badan waa dad markay xaqiiqda gaarto aan kala fogeyn xaqiiqda markay gaarto bahasha lama kala fogo gabdhaha Soomaaliyeedna horaan idinku sheegay anoo ninkan ila joogo uu iqabo uu agteeda fadhiyaan idin sheegi jiray waxa idin dhihi jiray isku qabiilaan anaga gabar hadaan nahay nimankana waa ximaar fiiri anoo ninkan iqabo ila joogo waxa idin dhihi jiray nin waa ximaar iska ilaaliya idin dhihi jiray waa idin kala dardaarmi jiray nin waa ximaar nimanka Soomaalida 30% ayaa wanaagsan 70 kale waa dangerous ximaarin marka iska ilaaliya idin dhihi jiray soo marka wixii aniga aan dadka ka wacyi gelina hadda xataa markaan kala tagno kadib laba habeen camal aan ka hadla programkaas waxyaabaha aniga aan idinka wacyi gelinayay ama aan rabay inaan idinka hor istaago ayaa aniga igu soo laabtay aniga ayay igu soo laabteen aniga ayay dib igu soo noqdeen way dhacdaa adduunkan wax kasta ayaa dhaco wax walba ayaa dhaco ma garateen soo laakiin aniga isma dheheen adiga ayay kugu soo laabanayaan adiga ayay kugu soo laabanayaan isma dheheenin hoostaada ka shidantaana isma dheheenin waxaad gabdhaha ka wacyi gelinaysaaba adiga kugu hoos jirina isma dheheenin runta markay gaarto gabdhaha Soomaaliyeed waa hal ragga Soomaaliyeed waxay ku fiican yihiin ayagana markii qalad dhaco qaladkaas way ka soo wada horjeestaan laakiin inta badan ayaga ayaa qalad ka galo ragga Soomaaliyeed ayaga ayaa qalad ka galo kuwa aqli leh oo wanaagsan oo caadi iska ah oo normal iska ah oo wanaagsan oo caafimaad qabo ayaa qalad galo oo gabdho fiidiyoyal ka duubo camera intuu gabar la tunto ama xaaskiisu camera ka duuba waa nin fiyo meel mal oo ma fahamtay marka laakiin waxay ku fiican yihiin wiilasha Soomaalida markay arrimahaas oo kala dhacaan inta badan way ka soo horjeestaan way ka dagaalamaan nin walba hooyadiisa u soo warmanto ka soo horbaxaysa ama walaashiisa lagu sameeyay ama gabadhiisa halka mar ay nimanka Soomaaliyeed hooyadiis walaashiis iyo gabadhiisa waxa xasuusta waa inta kale ma xasuustaan koob xun xataa wuxuu xasuusana maalintaas alla maantay gabadhi walaasha ahayd ama la soo duuba tii oo waxaan ku dhahay hooyada ama la soo duuba maxaa la yiraahdaa gabadhaada ama la soo duuba maalinta kaliya ay ku fikirayaan weeyaan maalintu gabar Soomaaliyeed qalad lagu sameeyo filim laga duubo wiilka Soomaaliyeed halkaas maalin ayuu noo murgaa anaga markaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed